dhaba in bariga dhexe ee cusub la qorsheynayo. maxaa dhici doona haddii Iiraan burburto? maxaase dhici doona haddii ay ka adkaato cadowgeeda? gobolkan mar walba wuxuu ahaa goob ay ku loolamaan quwadaha waaweyn, laakiin maanta xaaladdu waa ka duwan tahay tii hore. haddii Iiraan dhacdo, saameynteeda ku baahsan Ciraaq, Syria, Lubnaan iyo Yemen way daciifi kartaa. koox badan oo ku tiirsanaa taageerada dhaqaale iyo mid military waxay geli karaan jahwareer. Israa'iil waxay heli kartaa jawi amni oo ka degan sidii hore. Maraykankuna wuxuu dib u xoojin karaa siyaasaddiisa gobolka. laakiin taariikhdu maxayna baraysaa? markii Ciraaq la jabiyey 2003 kadib ridistii taliskii Saddam Hussein, ma dhalatay xasilooni mise waxaa urtay foodo, dagaalo sokeeye iyo kooxo hubeysan oo cusub? marka awood weyn si kadis ah u dhacdo, mararka qaar waxaa ka dhasha meel bannaan oo ay ku tartamaan xooga ka khatar badan kuwii hore. hadda bal dhinaca kale aan eegno. haddii Iiraan guulaysato ama ay ka badbaado cadaadiska saaran, taasi waxay ka dhigan tahay in saameynteedu sii xoogaysan karto. isbahaysiyo cusub ayaa samaysmi kara. dalal badan oo carbeedna waxay dareemi karaan cadaadis istiraatiiji ah. tartanka awoodda gobolka uu sii kici karaa xilli walba. markaas bariga dhexe ee cusub ma noqonayo mid degan, balse mid ku dhisan cabsi iyo ismiidaamin joogto ah ayuu noqonayaa. su-aasha ugu weynse waa tan: halkee ayay carabtu taagan tahay? labada xaaladoodba, jab ama guul, Iiraan waxaa isbeddel weyn ku imaan doona khariirada siyaasadeed ee gobolka. haddii aan la helin aragti midaysan, haddii aan la dhisin istiraatiijiyad ku salaysan dan wadaag dhab ah, mustaqbalka waxaa naqshadeyn doona quwado kale. bariga dhexe ee cusub markaas ma noqon doono mid ay shucuubtu doorteen, balse mid qorshihiisa lagu dejiyey miisaska sirta ah ee siyaasadda caalamka. ugu dambeyn, arrintu ma ahan oo keliya in Iiraan dhacdo ama ay guulaysato. arrintu waa yaa dejinaya mustaqbalka gobolka. ma quwadaha waaweyn mise dowladaha iyo shucuubta gobolka laftiisa? adiguna sidee u aragtaa? haddii ay Iiraan dhacdo, ma dhalan doontaa xasilooni mise guusheedu ayaa khatar ka weyn ah? fikirkaagu ku qor faallooyinka. mahadsanid.